Nigeria waa dal federaal ah oo dhaca galbeedka Afrika, wuxuuna ka kooban yahay 36 maamul goboleed iyo xarunta dhexe ee federaalka oo ah caasimadda Abuja. Abuja waxaa la aasaasay 80-maadkii, weliba si casri ah oo ka duwan magaalooyinka kale si looga dhigo caasimadda Nigeria. Waa dal dimuqraadi ah, waxaana shardi ah qofka codaynaya inuusan ka yaraanin 18 sano. Boqolkiiba 50 dadka dalkan waa Muslimiin, halka ay Kiristaanku yihiin boqolkiiba 40. Muslimiinta badankooda waxay ku badan yihiin waqooyiga dalka, halka Kiristaanku ku badan yihiin koonfurta. Dadka la yiraahdo Nok waa kuwa ugu horreeya ee Nigeria dega. Guud ahaan dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 200 milyan. Waa dalka ugu dadka badan Afrika, isagoona sidoo kale ah dalka 7-aad ee ugu dadka badan caalamka. Dhanka badka waa dalka 14-aad ee ugu dhulka weyn Afrika iyo dalka 32-aad ee ugu dhulka weyn caalamka. Wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 900,000 oo kiiloomitir iskuwareeg. Waxaa ku nool 250 qowmiyadood oo ay ugu caansan yihiin qowmiyadaha Hausaha iyo Fulani. Waxaana dalkan looga hadlaa 511 luuqadood, luuqadda rasmiga ahna waa English. Waxaana dadka dalkan boqolkiiba 70 yihiin beeraley, waana kuwa aad u tixgeliya dadka da'da ah. Waxaana ka mid ah caadooyinkooda dumarka Muslimiinta ah marka la guursanayo inaysan fiirin karin ragga jooga xafladda. Dalkan waa mid mug iyo miisaan culus ku leh qaaradda madow ee Afrika, isagoona ah midka ugu qadiimsan galbeedka Afrika. Magaalada Lagos oo 1991 laga qaaday taajka caasimadnimo, waa mid caan ku ah dhaqanka, sidoo kale waxay muujisaa inay tahay weli caasimadda Nigeria, maadaama ay tahay magaalo korisa dhaqanka iyo fanka Afrika. Wuxuuna dalkan leeyahay shirkad caan ah oo samaysa filimada lagu magacaabo Nollywood. Dalkan waxaa aad looga jecel yahay kubadda cagta, waxaana u dhasheen ciyaartoy heer caalami ah, isagoona ku guuleystay Koobka Afrika 3 jeer. Dalkan waxaa ka soo jeeda ninka ugu taajirsan Afrika ee lagu magacaabo Aliko Dangote, oo haysta lacag ka badan 12 bilyan oo dollar. Aliko ayaa mar sheegay meel fagaare ah inuu lacag badan bangiga kala soo baxay kadibna uu la tagay gurigiisa si uu u daawado lacagtaas, una xaqiiqsaday inuu yahay qof taajir ah.